السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتي ملك صدق داوريسان halkani waa Hamid Udaanuna waxaan ahay Cabdiraxmaan. Waxaan ku rajaynayaa caafimaad qaba meel ka soo daawanayso. Haddii aad nala joogtay waad mahadsantahay barnaamijka inoo share garee saaxiibada iyo Soomaaliba la wadaag. Haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biro channelka subscribe noo saar wadadii 100,000 baan saarnay wax yar baa inoo dhiman qoodhin iyo xidhadin sidaa uun inoo takhantaqeey. Haddii aad barta Facebook iga daawanaysana فلونا صوده وعشرة النتحنها قيبتن وقيبتي كوبيو تمنات وعشر كان يدقن كسويال كا حير عيسى وحير كي دوان هيئة يونسكو قرمد مدو رقمات وقابل سنة أي دراسي سي أي أقونصتي إنه يهي النظام تطلقوا معمول كراي ما أميني كرتا صومالي با وحي ليضا النظام دوني دا لغا اعترافي نظام دوني دا لغا اعترافي بالصومالي وليضا طبعا haddii aad tahay Soomaali Ciise ah deegaamada Ciise ku dhaqmay meel kasta Ciise degan yihiin waad fahmi karaysaa nidaamka iyo kala dambeynta iyo sharciga waxa uu yahay waad fahmaysaa sababtoo cashiradan baynu ku soo qaadanay sida qofka loogu gardaadiyo dhaqanka laakiin haddaynu Soomaalida kale ka nimid dhinaca fawdada ah ma fahmayno Soomaali baa nidaam leh dunidu aqoonsatay oo nidaamka may ku dhaqanno oo maan qaadano waa su'aasha aad isweydiinayso anaguna waa sababta aan cashiradan joogtada kugu qabanayo ka faa'iideyso qaybtan maxaynu ku qaadan doonaa dhagalayda dhaqan ayaynu ku qaadan doonaa su'aal dhaqanka maxaa u curad ah maxaa dhaqanka u curad ah curadkan hadda maxaa laga wadaa haddii aad xoolo dhaqato tahay hasha geelo koorta way qabta iyo hal curada markay aaranku la socdo waa horyaal waa hogaamiye waa loo kaxeeyaa meesha uu ka dida waa loo mariyaa suuriyada uu mari waayo hashaa loo mariyaa marka waxaa lagu yidhi dhaqan maxaa u curad ah waxaa laga wadaa dhaqan maxaa u madax ah maxaa u horeeya maxaa lagu sargooyaa maxaa lagu jaangooyaa maxaa aasaas u ah dhaqan unbaa lagu yorta dhaqan maxaa aasaas u ah wahagaag qaybtani waa cashir yar oo kooban waynu yar biirinaynaa cashirka labaad baynu ku daraynaa waqtigu maadaama uu aada u yar yahay qaybtan waa jawaab aad moodo buugga qoraagii qoray inuu ugu talagalay dadka inuu ugu jawaabo 10 cashiro hore dad soo dhageysatay su'aal baa laga yaabaa is weydiinayso xeer niyada diin bay baleenaya quraan maxay tahay waxaan la qorqoray in is weydiinaysa laga yaaba waxa lagu yiri diinta ayaa curad ah diinta ayaa ugu horeysa curadku soo waxa u horeeya dhasha ilmaha u horeeya dhasha curad lama dhaho waxa ugu horeeya ee xeer inoo ah waa diinta baa laga wadaa maxaa u curad ah waxa ugu horeeya ee dhaqankeena aynu ku dhaqanayno raacinay waa diinta oo loo jeedo diinta islaamka ee muxamadiyada ee furqaan ah aynu haysano alxamdulillah rabbil caalamiin xeerka ayaa ku xiga waa nidaamkii usluubta iyo wada noolaanshaha يعني أخلاق ذا وناكسن احترامك وذنولانشها لقن قلنت الدين تحيرك نظامك الراعدي سكرتو سيدة وهجاك ديغانكو وامد ومدى كدحية إن بدأ بين صوم الرأي عيسى نول با كدحية ديغان با كدحية داق با كدحية وحمك لها نول مكلا لها Soomaalida kale tarow ma laga yaabaa inay fahantaan hadalkaas mise inuu agtooda wax qiimo ugu fadhiya ma laga yaabaa wixii xumaana ee ku imaanaya deegaanka waa in laga ilaaliyo waana waajib saaran ruux kasta bay'ada iyo deegaanta waa lagu diray dhulka waa lagu diray ya arada in la fasahaadiyana waaba quraanka inaga reebayba يا قرآن كابين قال ربيو كو أرض الدحلسين دونه أي يلان دونه وكو أنفس هذين النبي الله سبحانه وتعالى وآية القرآن يقول ليه
ummadda dhaqanka mid ah leh ee xeerku ka wada dhexeeyo hadduu qof ku xadgudbo mid iyaga ka mid ah waa inuusan odhan waan aarsanayaa ee halkii isaga wax u qaban lahayd waa inuu yimaado oo ah geedka ummadda u dhexeeya nidaamkii xeerku maxay yihiin markaa waa asluubtii iyo wada noolaanshihii bini aadan baa la yahay carab iyo daan baa isugu dhow way isqoonaan waa lagugu khaldamay waa lagu dilay waa lagu dhacay waa lagu xaday waa faraxumayn iyo xadgudub baa adiga iyo maaragtay casabadaadii iyo reerkaagii lagu sameeyey maxaa kula gudboon markaad tahay qof nidaamkan iyo dhaqanka sooyaalka ee Soomaaliyeed raacaya ama haddaba ciisaa dhaqankoodu yahay maxaa kula gudboon waxaa kula gudboon inaad tagto goobta geedka garta la geysto ee lagu kala baxo dabeedna halkaas wixii aad qabto aad ka sheegato xaqaagiina waa lagu soo dhicinayaa dadkoo dhan baana kula jira xeerkaana ku helinaya sidaa daraaddeed baa hadda markii dibadaha loo baxay malaha nidaam kale marka la tegay macnuhu maaha inaan wax kugu dhacin Soomaalida banaanka joogta waxay ku oranayaan 6 number baa la ilaashadaa iyo 10kaaga number ilaasha iyo waxa ilaasha iyo maartay securityka ilaasho baa lagu oranaya maxaa laga baqayaa sharciga wuxuu qabaa haddii lagu xadgudbo inaad booliiska tagto way booliisku u jiraa haddii marka qofku wixii loo sameeyo wixii kale uu sameyn lahaa uu isku sidoo raba yeeli lahaa marka ammaanka ayaa faraha ka bixi lahaa wada noolaashuhuna way naaqusi lahayd saa daraaddeed baa nidaamkeenan hadda wuxuu ina tusayaa haddii lagugu xadgudbo dee markaa waa inaad report aad la diyaar garowda lana tagta meesha ku habboon waa tabtii dowladdii in badan aynu dowladdu ku fasiray xeerku wuxuu aabba u yahay wixii la miidhayo amba la dhibaato loo geysanayo wixii la liidayo ama la dhacayo ama la dulminayo ama la dhibaataynayo la dilayo jaraaxa la gaarsiinayo ayuunbuu xeerku dee kii dhayayay ee ilaalinayay ee u garqaadayay uu u yahay saa daraaddeed waxaa looba samaystay markuu dhib yimaado in lagu xalliyo marka lagama wada bini aadan baana dhibna ma imanaya hadduu yimaado qaab wixii laga yeeli lahaa waa la samaynaya wakaa ceelasha ummadda u dhaxeeya waa in la danayo dhabo oo haddii la arko nin wax xun ku samaynaya laga celiyo ceelasha dad qaar baa saamo ama harka ku rida si marka ay saantu qoydo ay ugu qabsadaan danahooda ruuxii lagu helo waxaas oo xumaana xeerku xukun buu ku riday horta ceelasha lama kala lehe beerta Soomaalideena kale uu nin walba ceelkiisa isagu leeyahay ciddu ka waraabiyo cid kale ka cabaynin waa qodob inkastoo Soomaalidu xagga iska deeqsi ka tahay oo laga yaabado oo man biyaha inaan ceel adiga xoolaha loo diidin haddana waa la kala leeyahay waa hagaag maxaa kale marka qofkii marka xumaynaya wixii dadka ka dhaxeeyay waa in la daranya dhabka magaran waa in la dayac tiro wey daranyo waa dayac waa dhibaato dhabiduna waa maartay in dayac tirid laga celiyo ama laga celiyo waa in dhibaatada laga celiyo ama maartay adigu waa in la dayac tiro waa ka hadalka ugu wacan waa in la dayac tiro ruuxii lagu helana xeerku waxbuu ka qabaa marka hadda cashirkan waxaynu ogaanay kow horta dhaqankan iyo xeerkani inay diintu curad u tahay waa marka koobaad waa marka labaad in deegaantu dadka ay ka dhaxaysiyo dhulka uu ka dhaxayo si loo wada difaacdo loo wada yeesho that's why Soomaalidu u kala baayoqontay oo qoloba meel loogu kaxaysay haddii dhulku inaga dhaxayn la wada difaacan lahay qaybta kale haddii qof dhibaato loo geysto waa inuusan aara gudanin ee uu gar doonto maanta inagu maxaan samaynaa markii waxay nagu dhacaan kakacaay tolaaye reer hebelow ummad dhan oo duulaysa oo reer ku duulaysa arkaysa cid qabanaysa male cid dhaanta male waka ummad habawsan inaan la in badan baa inoo sheegay
ummadan u duulaysa oo reer kale ku duulaysa meeshana maxaa laga hadlayaa war haddii lagugu khaldamaado ruux baa kugu khaldamay soo ma gar qaado bay-adiya deegaantu dadka way ka dhaxaysaa waa in la ilaaliyo waa geedaha la iskama goyn karo ceelasha lama aasi karo haragga waa la megdiyaa waa la xabaalaa waa la qooyaa dabeedna xoodh buu noqdaa dabeedna waa la naafistaa ama waa la megdiyaayo dee waxbaa laga sameeya weel baa laga sameeyaa sida tabadii iyo sabraarkan sheeganayo kale ama xoodh baa laga dhigayo loolka lagu duubaa ama dhigaha lagu sameeyaa ama xadhig baaba laga toolaa laga samaystaa laga soohaa intaasoo waxba harag ama kabaa laga toshaa waxaasoo dhan waa lagu qabsadaa laakiin haddii ruux intuu ceel ku rido markuu u qoyo uu intaad la soo baxdaa markaa magdisid dee biyo way urayaan oo xoodhkii biyaha wuu urinayaa haraggii waa in laga qabto waana mas-uuliyad dadka wada saaran wey qaybtaasi waa dhaqanka halkana waa dhegalayda tilmaamaha 8 ah ama xeerka guud 8 ama astaanta 8 waxay astaan u yihiin 8dani waxay astaan u yihiin dadkii xeerka dhigtay baa lagu barayaa laakiin xeerkan Soomaali oo dhan buu anfacayaa sababta adduunka dhan baa la ictiraafayba marka u horeysa waa 12 aqal waa lagu barayaa waa 12 gelin waa 12 geed waa 12 dixood balse ula qabso horta 12 ley baa la yiraahdaa gandaha oo ka kooban 44 aqal guurtida dixda loo rido loo dhaadhiciyo ee habeenkii barida waa 44 gudida nabadda xidha waa 44 tresleeg xeerkana waxaa ugu dambeyntii dhammaystiray oo 2 sanadood muddo ah u fadhiyay geedka city 44 oday oo baha u dhan tahay magaran baha yacni reer walba uu ku jira laga wadaa bah waad garanaysaa soma reer walba ku jiro 44 gandaha iyo 44 gudida kasta oo ka kooban yihiin waxay 12 aqal ee ciisuhu u yaqaana sidan soo socota 12 aqal ayuu ciisuhu ka kooban yahay waana sidatan ceeleeye waa 8 muuse oo 4 iyo mamaasan oo 4 wardiiq waa 8 waqtiishle oo 4 iyo rumawaaq oo 4 holle waa 7 saacid oo 4 iyo mahadle oo 3 hawla qaade waa 7 iidle oo 2 iyo yuusuf oo 5 hoorone waa 7 geel walwaal oo 4 iyo habar walaal ama heer walaal baa meesha ku jirta ma commentigeenu ka heli doona hadaas waxay u taagan tahay oo 3 uurweyne waa 7 fiqi oo 4 iyo cabdalle oo 3 arrin kasta waa in ay u dhannaadaan 12 aqal ciiso maxaa marka loo keenay in la inoo tiriyo la ina baro waxaa la inoo barayaa waxaa la ina leeyahay waa in ciisuhu uu u dhannaado macnaheedu maxaa weeyaan waa inaadan odhanin dad baa isoo xukumay iyo cadaalad darra lagu xukumay waa in loo dhan yahay garta waa in meeshaas gartaada lagu qaadayo waa in loo dhan yahay sida daradeed ayaa marka waxaad garan karaysaa cadaaladda hadda maxkamada oo kale markaa tagto qofkii la haystay waa inuu joogo qofkii haystay waa inuu joogo lawyerkiisi waa inuu joogo xeraalihii waa inuu joogo xaakimkii waa inuu joogo inta haddii mid ka mida la waayo dib baa ballanka loo dhigaa waynu tagi doonaa garta marka la qaadayo ee la fadhiisto waxyaabaha la yiraahdo sida la isu toodoodo sida macna la yiraahdo waynu tagi doonaa waynu arki doonaa waa sharci dhammaystiran oo dawladeed dad loogu talagalay in lagu maamulo waxa markaan casharadan u soo gudbinayaa soo kale barayaa in da'yarta Soomaaliyeed ay baraarugaan ogaadaan nidaamkooda soo jireenka ogaadaan dunida inay wax ku soo kordhiyeen ay maantana kaga baxaan burburka iyo dhibaatada iyo baahida ay u qadaan nidaam iyo kala dambeyn
intaa wayaan ujeedkeenu iyo fariinta aynu gudbinayno aad baa intiina daawata ee sheer garaysa ee commentiga ka bixisa ee laa garaysa aad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dad akhyaara oo igala soo xiriiray Djibouti oo aan jeclahay inaan mar idiin soo bandhigo waxtarka ay barnaamijkan iyo isgargaarka barnaamijkan ay u geysteen iyo garab istaaga oo moralku kow ka yahay idinkuna la mid baatiin intaanu qaybta labaatanaad ku kulmi doono waa anigu Cabdiraxmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh